cudurkii dowladaha reer galbeedka oo dhabar jab ayna ka soo kaban karin muddo sanado ah wadanka Itoobiya dhabarka u saartay kadib markii ay qowmiyadda Oromada maanta ay ku dhawaaqday in ay dhisanayso maamul ka madax bannaan dhammaan Itoobiyada inteeda kale ayadoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu meel uu cag iyo cirib dhigo uu leeyahay kadib markii ay wadanka Itoobiya xaaladiisa qalqal iyo kala furfur aad u fara badan ay soo wajahday ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhanka kale waxa kaga furan doorashadii wadanka taas oo uu qabtay markii ugu horeysay doorasho dimuqraadi ah ee ay shacabka soo dooranayaan dhanka kale waa maxay cudurka reer galbeedka dowladaha reer galbeedka oo lagu yaqaano in ay dowladaha qaarada Afrika iyo bariga dhexe ha ugu badnaadeen in ay jecel yihiin mar walba in ay xaaladooda gudaha aysan kaligood qabsan ay la arrimiyaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sida warar iyo xogo had la helayo waxa ay sheegayaan in ay ka dambeysay sababtii ay ciidamadii TPLF ee horey looga qabsaday caasimadda Maqale iyo Tigray ay dib ugu soo laabteen kadib markii cadaadis baahsan uu kala kulmay dowladaha reer galbeedka oo ugu horeeyay wadanka Mareykanka oo xataa ugu hanjabay in uu cunaqabateyn saari doono ra'iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayadoona hadeertaan ay Maqale dib u qabsatay iyo xataa goboladii horey looga qabsaday ciidamada TPLF ayadoona la sheegayo in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed cadaadis kala saaray uu ahaa in uu ka baxo magaalada Maqale iyo agagaarkeeda kadib markii ay dib u soo laabtaan ciidamadii halkaas laga raacdeeyay wada hadal uu la galo ayadoo taas ay jirto ayaa haddana qowmiyadda Oromada maanta waxay sheegtay in ay dhammaan maamulada Itoobiya ay gabi ahaantoodba hoos imaan doonin ayadoona maamulkii caasimadda wadankaasi ay soo dooratay dowladda ku hanjabay in ay gabi ahaanba meesha ka saari doonaan maadaama ay ku shaqeynayaan awaamirta Abiy Ahmed haddaba adduunka waxaa ka jiro cudurro fara badan hase yeeshee cudurka ugu daran ee aanan laga soo kabsan karaynin waa faragelinta reer galbeedka ayadoo hadda ay qir iyo qir isku yihiin wadamadaas reer galbeedka oo ugu horeeya wadanka Mareykanka iyo China iyo Mareykanka wax kala isku haystaan waxa ay isku haystaan oo dagaalkooda ugu ba'an uu ka taagan yahay waa saameynta oo China ku yeeshay qaarada Afrika iyo bariga dhexe meelo kamid ah sida Iran iyo sidaas darteed Mareykanka iyo reer galbeedka dhamaantood waxay u arkaan cudurka ugu weyn ee dunida ee dilaaga ah in uu yahay wadanka China maadaama wadanka China uu la soo banbaxay cudud military midii ugu badneyd iyo dhaqaale asigoona wadamada Afrika maalgashi aad u weyn ku sameystay saldhigyo fara badan ka sameystay hase yeeshee saldhigyadaas faraha badan leh iyo awoodda dhaqaale mid military mid saaniyad mid hub ee China la soo banbaxayo ay waxay u arkaan wadamada reer galbeedka in ay tahay saameyn midii ugu ballaarneyd oo hadhow kaleetana ay awaaqib xumo keeni doonto hase yeeshee China iyo Ruushka oo dhinaca kale oo ayaga iyo dowladaha reer galbeedka ayaa la dhankooda waxa ay ka wada walaacsan yihiin midba midka kale taas oo xataa quburada ama siyaasiyiinta ay leeyihiin waxa soo degdegi karo dagaal nuclear haddaba dagaal nuclear horta kama suurtoodo wadanka China in uu la galo wadamada reer galbeedka hase yeeshee wadanka Ruushka ayaa waxa la dhihi karaa waxa uu la gali karaa dagaal nuclear ah dowladaha reer galbeedka maxaa yeelay wadanka Ruushka gabi ahaanba waxa uu ka soo horjeedaa siyaasadda qalafsan ee reer galbeedka asigoona sheegay in dimuqraadiyadda ay waxay jecel yihiin oo kaliya ku fasirtaan tusaale ahaan haddii aan fiirino yacni ayagoo hadda China oo kaleeto iyo Ruushka inta badan dowladaha reer galbeedka ay ku haystaan inaysan gudahooda ka shaqeynin dimuqraadiyo wax la yiraaho ama yacni cadaadis la saarayo siyaasiyiinta wadankaasi
ayagoo ku eedeynaya inaysan doorasho xor iyo xalaal aysan ka dhicin wadamadooda, ayaa waxaa la yaab leh in dowladaha reer galbeedka dhibaatooyin kuwaas ka waaweyn oo meelaha qaar si cad uga dhacayo aysan ka hadin, ay haddana jecel yihiin mar walba inay ka hadlaan dowladda iyo shacabkeeda markaas waxyaabaha ka dhex dhacayo. Haddaba taas oo jirto ayaa wadanka Itoobiya waxa uu galayaa qalqal siyaasadeed midii ugu darneyd. Sababta keentayna wax kale ma ahan, waa dowladaha reer galbeedka faragelintooda. Mar haddii dowladda la farageliyo, dowladdaas waxay u dhowdahay in ay burburto dhammaanteed. Sidaas darteed wadamada Ruuska, China oo dhinaca ah iyo dowladaha reer galbeedka kuma ah cudurka ugu weyn ee adduunka harakeynayo. Ma China iyo Ruuska ayaa ah cudurka ugu weyn, ayadoo China cudurka hadda lagu sheegayo uu yahay mid dhaqaale oo ah wadamada in ay qaameyso. Tusaale ahaan Nairobi oo Kenya oo kaleeto ay hadda waxay ka furatay mashruucyo waaweyn ayadoo dowladda dhaqaale aad u fara badan siisay. Hase yeeshee dhaqaalihii ayaa xadka ka baxay oo xataa waxay leeyihiin siyaasiyiinta ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha in ayba u dhowdahayba wadanka Kenya in ay iska bixin kari waayaan deynta